السلام عليكم Soomaalida meel walba dunida kaga nooshahay magacaygu waa Cabdi Xasan Axmed waxa ku noolahay dalka Jarmalka dhibaatayaraniyo maanta igu kaliftay inaan kaamiro soo istaago soo duubo igama aha inaan kaamiro jecelahay igama aha inaan dadkiina soo jecelahay wallahi daacada in kala hadlaa wallahi waa dhaartay qalbigan ka hadlaya waniyo anoo BBC dhageysanay waxa maqlay muxuu ahaa Sierra Leone askariya waxa laga yeelay Ebola marka ciidamada militariga ee Sierra Leone Soomaaliya waa la keenaa wasiirka gaashaandhigga ee Sierra Leone wuxuu yiri 800 aan Soomaaliya u soo wadnaa laakiin kii cudurku uu ku dhacay gujiro ku lahaa see ku qaadana Ebola haddii aad taabato haddaa ku neefsato haddaa la tababarato haddaa wax la cunto u qaada qofkaas dad uu ku dhex jiray marka seen loo keenaa anaga hooyadii ku nool aabahay ku nool abtigii ku nool awowgii ku nool ayeedii ku nool Turkiga dhanaa ku nool Soomaaliya dhanaa ku nool xuluftayda ku duugan cunugayga ku nool ma asxaabtayda ku nool saaxiibkayga dunida ugu jecelaha ku nool marka abtiyo maxaa sameeyay aniga marka dibkaas ay soo ristaagay maanta kaamirina ka hadlo mid kale waxay tahay madaxweyne Xasan waxaan ku sheegaa ama aan kula dardaarma ama aan ku soo gudbina codsigayga uu ka yahay oniyo wadanka gacantaada ku jira nin muslim oo la doortaa tahay walaalo macaano dadkan Sierra Leone laga keenay naga celi naga jooji warka dadka Nigeria laga keenay naga celi naga jooji war dadka Burundi laga keenay naga celi naga jooji Uganda laga keenay naga celi naga jooji Uganda mid kala ka dilaa cudur kale oo Ebola ka dilaa Marburg yiraahdo oo wadankan aan joogno Jarmalka magaalo kamid ah magaceedu wato dadka waa sida Ebola kale ku ka siiyaniyo toban haduu ku dhaco 5 waaya marka abtiyo naga ilaali way bariyana adiga hadii Xasan Sheekh Maxamuud waday hooyada aabaha awowga ayida ciyaalkaaga tolkaaga xaaskaaga dhan ay joogaan Yurub ama Malaysia ama Dubai ama Imaaraadka ay ku nool yihiin aniga tabartas milyan ciyaal aan hooyadii iyo familkeen ku qadqadno brada aniga dilin dadkeena noo taxadar adaan ku dooranay wadankeeda noo fadhiyo laga ilaali brada war Soomaaliya nala shir gareetin ma ahan wax oo qosol wallahi daacad iga taa wallahi nala shir garee walaalahaaga dadka lana tus sida loo helo cod badan oo madaxweynaha loogu gudbiyo السلام عليكم ورحمة الله.